أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صادق الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa halkan ka hadlaya Mahdi Muuse Isaaq oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Awdal State waxaan rabaa in aan ka hadlo shirkii maanta u qabsoomay dadweynaha Awdal State iyo maamulka Awdal State oo lagaga hadlay arrimo taagan oo baryahan dambe oo shaqaaqo u keenay dadka reer Awdal marka maanta ay bishu tahay October 13keedii waxaa shir teleconference uu ka qabsoomay oo laga soo galay daafaha adduunka oo dhan dadka taageersan ama jecel horumarka dadka reer Awdal halka waxa warbixin ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Awdal State iyo wasiirka warfaafinta ee Awdal State kana warbixiyay sida ay u jiraan xaqiiqaduna ay tahay arrimaha baryahan miidiyaha gadabursiga ee jecel dib u dhaca ama dhibaatada dadka ay wax u qoraan ay faafiyeen walaalayaal waxaan idin sheegayaa in maamulkan ama dhaqdhaqaaqa Awdal State in loo abuuray in uu dadka reer Awdal u ka saaro meesha ama halka ay taagan yihiin oo ay gaadhsiiyaan rajada mustaqbalka carruurtooda halka ay higsanayaan inay ka hoos qaadaan yasidda iyo dhibaataynta dadka reer Awdal laakiin sideedaba waxa weeyaan marka wax la bilaabayo walaalayaal waxay u dhacdaa in dadka waxa bilaaba qaarba ay si u soo galaan meesha oo ay qaar ujeedo gaar ah ka leeyihiin qaarna ay daacad ka tahay marka kullay ilaahay baa xisaabta iska leh ilaahay baana xisaabinaya qofka saxda ah iyo qofka qaladka ah laakiin haddaynu nahay dadweynahana waan garanaynaa sida ay wax u socdaan walaalayaal waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum waxa weeyaan qofku ama bini aadankii hadduu diin leeyahay waxa waajiba inuu ixtiraamo ama ka dambeeyo dadka uu xalka u dhiibtay sideedaba waxa hadduu khilaaf yimaado bini aadanka ilaahay baa u abuuray khilaafka oo carab iyo labadiisa damba istanqara familiga adoo aabbaha aad ka tahay ama hooyada aad ka tahay ama walaasha aad ka tahay baa khilaaf iman kara laakiin khilaafka waxa lagu dhameeyaa si ay ku jirto wanaag ku jiro laguma xalilo si aggressive oo dadweynahaaga ama dadkaaga dhibaataynaya marka maanta shirka dadweynaha waxa laga hadlay waxyaabaha keena khilaafka oo ah in caasinimo ay ka soo baxday inay dad ku caasiyayaan jiritaanka maamulka Awdal State sideedaba waxa weeye qofka bini aadankii qof uu nacbaan karaa shakhsiya laakiin waajibku waxa weeyaan wixii uu u bilaabay inuu dadkiisa u qabto waxa haboon ee uu line-ka khadka hoosta ka mariyay underline inuu horta gaadho waayo waxa weeyaan ma aha inaad qof ka cadhooto oo tiraahdo qof baan uga tegay wixii aan dadkayga u qabanay midda kale waxa weeyaan walaalayaal qofku marka uu wax samaynayo waxa waajiba inuu miisaamo khasaaraha iyo faa'iidada ku jirta waa inuu advantageska iyo disadvantageska waa inuu eegaa midkeeba badan waxa aad samaynayso ficilka aad samaynayso ma khasaaraha badan mise faa'iidada badan kadibna you have to decide waa inuu markaa go'aansadaa midkii faa'iido ugu jirto hadduu khasaaruhu badan yahay dee wax weyn xal kale inuu markaa uga wareego oo uu tala kala qaato haddii ay faa'iidadu badan tahayna faa'iidada ma taqaanayo walaalayaal waxaan idiin sheegayaa hadalkaa yar ee soo baxay ee maanta gaadhay miidiyaha dadka cadowgeenna ah waxa weeyaan dhibaato weyn bay u geysatay dadkii reer Awdal ee aanu matalaynay ee aanu u ballan qaadnay inaan noqono looyarada waayo labadaas sannadood ee magaca Awdal State jiray waxa weeyaan dadka maanta opponentskeena ee SNM gadabursi hoos bay uga foorarsadeen laakiin maanta waxay ku soo noqdeen halkii 2 sano ka hor ay taagnaayeen waxaan si dadweynaha Awdal State u sheegayaa in Awdal State maamulkeedu uu shaqadiisii wado hawshiisii uu wado qofkii isagu ka baydhay kullay ay isaga u taalo waxa weeyaan tareen baa la saaran yahay tareenka hadda qofkii ka degaa waa qof isaga de kullay islu gooyo isdhibaateeyay waxaan rabaa inaan ka hadla midda kale waxa la yidhi waxa xilkii laga qaaday madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka
madaxweynaha awdal state garyaqaan rashiid nuur xirsi waxa xilka saaray dadweynaha gadabuursi oo cod aqlabiyada boqolkiiba 99 ku doortay madaxweyne ku-xigeenka maanta leh anigu xilkii waxaan uga tegey wada shaqayn la'aan madaxweynaha wuxuu ahaa kii isagu dadka reer awdal ee codka bixinayay lobinka sameynaya ee lahaa war codka ha loogu rido rashiid aw nuur xirsi waa ninka maanta matali kara dadka reer awdal waa ninka u soo ridi kara cadkooga kalsoonidii markaa uu ku qabay goorta ay ka luntay ama goorta uu kalsooni darradu ay timiday waa tu la isweydiinayo wey kalsooni darra hadday timaadana waxa weeye isaga madaxweyne ku-xigeen ahaa waxay ahayd inuu xilkii isagu u qabto la tashado golaha awdal state ciddii uu la tashan karayo isla markaana uu fuliyo hawshii dadka uu qaaday xilkii uu qaaday dadka laakiin maanta waxay ku sifoobeen nimankaasi in ay u adeegeen maamulka SNM waxaa la sheegayaa markaa guddi inay xilkii ka qaaday madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha waxaa xilka ka qaadi karaa waxa weeyaan waa golo baarlamaan waa mid waxa kale lagaga qaadi karaa doorasho loo qabto dadweynihii marka horeba soo doortay oo codka ugu ridaan marka haddii ay aqlabiyadii tiraahdo codka ay qofka la tartamaya siiyaan dee waxa weyn si qaanuuni ayuu kaga degayaa hadday isaga dib u doortaanna waa halkeeda marka waqtigeedii lama gaadhin taana cidda kale ka qaadi kartaa waxa weeyaan waa golo baarlamaan haddii uu jiro oo aqlabiyad ay isku raacaan impeachment in madaxweynaha la impeach gareeyo labadaasi waxaan ahayn oo madaxweynaha xilka lagaga qaadi karaa ma jirto waxyaabahan ay sheegayeen guddiga sare golaha awdal state guddiga golaha sare awdal state waxaa guddi markii hore loo magacaabay 5 qof oo loogu talagalay inay daweeyaan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay dhex galaan in ay dadweynaha matalaan oo wixii dadweynuhu doonayaan ay gaarsiiyaan dowladdana ay ka soo qaadaan wixii ay wado ee ay tahay barnaamijyada ay samaynayso ma ahayn guddi marka asalkeeda loo magacaabay inay xil ka qaada madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waayo awoodda ma yeelan karaan waxabase yimidayba in khilaaf uu yimiday guddiga dhexdeeda oo 5tii qof ee loogu talagalay maaha dad kale oo ama xubno kale oo aan ka tirsanayn marka hore guddiga lagu soo daro oo dad iyagu dan gaara leh ay wateen taasina waxa weeyaan haddii khaasatan anagu aan ahaa guddoomiye ku-xigeen guddigaas ka mid ah in aan idhi waxa loo baahan yahay in ay abruuf gareeyaan cid kasta oo lagu soo darayo guddigu 5 xubnood ee guddiga awdal state 5 xubnood waxay ahaayeen wasiirka arrimaha bulshada waa Siciid waa wasiirka arrimaha gudaha waa Cali Faarax wasiirka warfaafinta waa Mahdi Muuse iyo dugsiye iyo nin la yiraahdo Beegsi 5 qof bay ahaayeen guddigu waxay ahayd cid haddii lagu soo darayo la isku waafaqo in cid lagu daro in 5taas qof ay isugu yimaadaan oo si aqlabiyada ay u ogolaadaan ciddii la shaqayn karaysa marka ay haweena laakiin nasiib darro ma ay dhicin taasi cidna wax lagalama tashan waxa weeyaan guddi suuq madow ah ayaa markaa shirtay go'aanna ku gaadhay waxaanay soo saareen oo ina awoodoodana lahayn sidaa daraaddeed waxa weeyaan adigu haddii aad tahay maamulaha iskuul ama maamulo company qof shaqaalahaagii kuma odhan karo ama 2 qof oo shaqaalahaagii kuma odhan karaan xilkii baan kaa qaadnay sidaa daraaddeed dadweynaha reer awdal state waxaan u sheegaynaa in guddiga la sheegay ee la tiri madaxweyne iyo madaxweyne xilki ka qaadeen inay tahay guddi aan jirin guddi aan sharci ahayn guddi aan waa la isku waafaqsanayn guddi aan lahayn awoodda ay xil kaga qaadi karaan madaxweyne sidaa daraaddeed taasi dadweynuhu raalli ha ka ahaadaan inaanay waxaa samayn karin dadkaas waxa kale taa ii soo raaca adduunyada haddii auna jirin wax la yidhaha wada watashi ama wada shaqayn waxba ma hagaagaan waxa weeyaan taasi hadday lunsan tahayna waxa weeyaan waa in la raadiyaa sidii lagu heli lahaa ku iman lahayd taas waana ta aan raadinaynay doonaynayna inaanu xal u helno laakiin nasiib darro ay dad iyagu dan gaara lihi ay ka degdegeen walaalayaal waxaad ogtihiin 2 bilood ee la soo dhaafay in maamulka awdal state uu ka shaqaynayay in uu sameeyo wax la yiraahdo horumar inuu waraysi la sameynayay uu waraysanayay dadweynaha reer awdal state waxa ay tahay in la qabto waxa maamulka awdal state uu ogaaday
in boqolkiiba 99 dadka reer awdal ay doonayaan in tallaabo la qaado oo dhulkii sidii loo xoreyn lahaa falankeeda la qabto sida ugu dhaqsaha badan go'aanka dadweynaha ka soo baxay daraadii bay maamulka Awdal State waxay sameeyeen go'aan ka soo baxay madaxweynaha oo ahaa in qodobka ugu horeeya oo ahaa in sida ugu dhaqsaha badan loo tago East Africa Soomaaliya in la tago oo la soo siyaarto dawladda cusub ee dhalatay in la soo siyaarto sida daraadeed dad baa ka hor yimiday marka qofka ka hor yimiday macnaha ee la dhulkiyaan la tagin macnaheedu waxa weeyaan waa qof doonaya inaan haba yaraatay wax horumar la sameeynin marka madaxweynaha iyo dawladda Awdal State ama maamulka Awdal State waxay go'aan ku gaadheen in ay xilkaasi qaataan oo tallaabadii qaadaan oo la sameeyo in Ethiopia la tago in dawladda Soomaaliya la tago oo laga wargeliyo dawladda maamulka cusub halka ama heerka aan ka taaganahay annagu in aanu iyagana ka soo qaadno waxay naga taagan yihiin heerka naga taagan yihiin in Ethiopia la yimaado oo lala galo heshiisyo diblomaasiyadeed in lala galo heshiisyo siyaasadeed sida daraadeed kooxdan iyadu danta gaarka